على عداوة هل مر إيه كذا بهل كان وأنا أي ديجي صوت أفريقيا كواي ماشاس وحا إيجو جرتو ورقد وحا إيجو جرتو أو أيدين توسا أو أقري كرتينا أيدين كوسو دبينا صوت أفريكان بوليس سيرفيس أكو قرن community service center هل مر إيه كذا ديت كو وجدين قبلنا أنا الله يرى أذيك سنة إلى قد أوصله بصدق إلمي قلت كأك شيء عن قد أوصله بصدان ربي إنا مال إنا سعد وقهر ما أنا ربين فيري تامر كان كصوتكو إنا أدرى وقع عليه وحان السوشيال ميديا واي قفك وحل ربالة ديه كرا وحل ربالة سماه كرا أبو إلميه سإن لو قد بأما هو إن إلميه هذا لو قد بقلت واي أيضا ما دام قلت كاس إيه قرتي أماشا سأوهر كيس كيدا وحكوسو هاري إلا رادينايو أنا أدريس كيدا نواهلي ماشي كشقينيسana waa helay niman detective aan u dhiibay warrant of arrest system ka loo geliyay meel allaala meesha lagu qabtay in inta la xiro maxkamadda ay fuushay ahayd keeskaas gabadha way hadashay waa ku lagu celin doonaa hadda waxa dhibanay CK gabadhan arrimo ku soo eedaysay CK wuxuu yiri dhibaato bay geystay arrimo badan waxaan ka wadaa ninkii Arush baan ka wadaa sorry saaxib marka Arush baan hadda WhatsApp-kooda hadlaynay qolkii codka naga xumaaday عروش أنا يعني ركال نوي مقول بنصفرنا ونوي ما أدب ما سين هاي يارنا ولا نشوفها عروش وحروا عوض كجواد أنا يفهم الكيسية أصلا دبعتي له جستين وكالله كبعدين جواد كسر الله والله أيضا إبتدى الشيء تجرتاس أنجل الساعة الدالية لو أنا واحد شو عن صوت أفريقيا عروش يجواد عرفت ساسوي ما قلت عروش نواش تغنان جواد صوت أفريقيا شوفتها مركز جرتاس إن شاء الله هذا من وضعياتها ساس ولا صو مركز سيدا عروش وأنا بود بكوجرنا اوكي صاحبي الارض وما هتسنتهين انا ورب بدن ماشي ان ما هاي ورب بدن ان aan dhaho marrabi لانه waxa aaminsanahay social media inay maxkamad ahayn qof allaala qofkii dib loo geystay ama qof allaala qofkii dib geystan sharciga iyo nidaam iyo system wadanka ku nool yahay inuu marayo horta waxaan rabaa intiina cali soo noqo علي صون قدي أنا مدير أقول لك سنين كوسع يددوينا والله قلت كوقا أنا سوق الكلية مرة البناء كوقا أنا قلت سو علي وفضي وحيرها أنا وحى كوقا أنا قلت مديرية النوان هاي ساول الصمر إن شاء الله عادي أرت إلهي سبحانه وتعالى أنا جنا أبورته وحكوا علينا مركلة وقال تعالى إلهي وحلي يا عبادي أدومدي ذي إني حرمت ظلما على نفسي وجعلت له بينكم محرما فلا تظلموني أيان سؤالي أيان مدوغان وكاد ساعة أرش قبل سؤالي متقنا أيان أنا سؤالي أرمارك اللي ودي سنينا لما يسمع قبل الدعوة سوق بس قبل هذا أنا صار ندمع صوت يا رسول أيان صوت تلفون بعد على جابه واي قرت أدوات ديبتي واحد ديبني أروش دقي سواح لوسو إيدي ويلكن عادينا صلابه كسواحنا موقت وقفل بتي وحي لوسو إيدي ودقيست مركز قرت الله قاله si hal mar loo wada qaado gartaada wixii lagu soo eedeeyay aad u sheegatid iyo wixii xaq ah leedahay labadaba marka soo laaba ama wax soo tuurayaa insha Allah ما أعرف أيان برو imale aan dhigaysana marka ayaan hore u mudugo hal waxa idin sheega idin ixtiraamayo fiiri gabadhan maato idin la hadlaysay hadal hadii uu wax taraay the whole day from this morning ila hadday hadlaysay dohdo wax taraay ani aan idin sheego wixii aan qabo aan idin dhageysiyo gabadha iyadoo igu xad gudbayso cirdiga iyo sharafkii ilmihii iyadoo caynaysa ay idin daaro markaad dhameysataan oo aad dhageysataan ani waa idinka tagaa gabadhan aan iyadoo wax ku kala bixeenaa maxkamadda ugu sareysa ee dalka koonfur afrika ku kala bixeen wadanka isla joogna ani iyada ma fahanti hal mid rabaa markii inaan idin weydiiyo intiina meesha saaran ilaahay idinku dhaariyey kolay ama aabba waa tihiin ama waa noqon doontiin ilma idinka aad dhasheen oo saqiir ah qofkii ku dhaho ilmahaaga adiga aad dhashay saqiirka fuulay qofkii ku dhaho muxuu ku reebtay intaas idin weydiina horta aad weyn waa arrin fiican ma siikay muxuu ku reebtay qofkii saas ku dhaho ilma yaro saqiir dambi mala qalad weyn okay على عدالة qofkii inta kula gaar muxuu ku reebtay wax fiican ma in kasto ay okay aan dhameesto marka idin daaro aan markaan idin daaro oo aad dhageysataan ani hadalka meeshaas ugu haray laba eray kala ku darsan doona okay ii kaadi marka 1 minute waa bani daara hal mar 1 second isuga mudi gala bis idinko raali ah hormudu gaangi على عداويه waa salaamaya inaad yaro isdheefo mudno kale waa maasan tahay salaamullah arrin ba ku jirna ninka odaga hal mar dhageysano
si hal mar u dhamayno. dhegeysta hal mar ii dhegeysta laakiin su-aasha aan qabo see macquul ku tahay caruush waddanka maba joogay see rabtaa ma hubtaa inuusan waddanka joogin tikidkiisa halkaa idiin soo dhigayaa shalay oo Johannesburg ka baxay adeer PE ilaa Johannesburg diyaaradda waa saacad iyo bar ilaa hal mar ii kaadiya laakiin su-aasha aan qabo hal mar ii kaadiya give me 1 second 1 second waxay leeyihiin dadka AI waaye beejkeedu yaalaa videoga beejkeedu yaalaa iyada beejkeedu yaalaa ma hubtaa inuusan waddanka joogin tikidkiisa halkaa idiin soo dhigayaa shalay oo Johannesburg ka baxay adeer PE ilaa Johannesburg diyaaradda waa iweney cali iweney 2 saac waa shalayda ninka markuu soo sidaayay waa Johannesburg ka baxay xagee ka aragtay mise waddanka joogin mise wuxuu kugu sheekeeyay wada aamintaada yaa waddanka waa nala joogaa walaal waana baxay Nairobi u aaday Kenya marka waxaadan hubin ha ka hadlin munaafiq hadduu jirana ninkaas waaye naag kale uguma baqaayo gabadhiisa inuu ku dayaan ka baqayaa futureka ilaa naagna ma tusi karay gabadha yiriista oo hadda socodka baratay inuu ku dayo waa ka baqayaa okay videoga beejkeedu yaalaa iyada beejkeeda uu videogu yaalaa ma fahamtay taa markaa ka soo tago cali cadaawo intaasoo kun oo qof ay maqlayso gabadhaan waxay leedahay waa lii dilooyaa waa lii soo eryaday waa lii soo bursaday intaa ka dhacay cid dilaysa iyo cid eryata iyo cid bursadaysa horta aniga aqoon uma lihi ma ogi kolay qof hadasho oo dadka ka hadasho oo dadka maalin wax ka sheegto waaye aniga iyada sharcigaa ku kala bixeenaa 3 kees oo isdabayaalaa nooga bannaan maxkamadan u tagay lawyer iyo detective u isticmaalay wax allaala wixii ay cunugteeda saqiirta ee ku maagtane dowladda koonfur afrika iyo sharcigaasa ani iyada ku kala bixeenaa caawa haddii la dilo ama hadday dhimato anigii shaqo kuma lihi waxaana shaqo ugu lahayn nin waddanka sharci ku leh oo deegaan ah oo maxkamad tagay oo lawyer tagay oo ilaahay kuma dannaaday kees gabadhaas ka soo furo ah oo sharci waddanka u isticmaalayo qof sharci waddanka isticmaalayane intuu qof iska baxo iyo tuuga la isticmaalaya waxaas waddankan dad tuugada isticmaalo waa dad ayagaba tuuga oo balaayo qashin ku dhex jiro waa ma fahanta anyway gabadhaas ani gabadheedaas ee ku xadgudubtaan ku haystaa cirdigayga iyo sharafkayga ku xadgudubtaan ku haystaa inta aan noolahay ee naf igu jirtana shay kastoo ani mas-uuliyaddeeda isaaranta oo cirdigayga iyo dadnimadeeda iyo ilmahayga ugu horeeyaane inaan difaacdana ilaahay subxaana wa tacaala ee naqalqaa xaq ii siiyey intaasaa gabadhaas uga haray toobigeeda waxeeda hadday qaldan tahay hadday saxan tahay idinkaa wax dhahay waxaa su-aal rabtiin waa weydii kartiin meeshaasaa marka uga har markaani okay mudigana marka after waa dhegeysta adigu toobiga problem gabadha ku haysto waxa weeye hadalkii hadda ahaa oo beejkeeda yaalla oo ay ilmaha ku cayday okay ayadu waxay sheegtay case hadda ka hor dhacay inaa ku soo daba gashay case-kaas ay ayadu baraha online-ka ay soo gelisay maamo gabar ilmo loo kursaday oo nin xirtay ka bacdi ay sheegtay maamadii u soo gudbisay caruush inuu u dhaartay waxay kaloo caddeyn u wadataa in aad timid ganacsigeeda gabadha makhaayad beeladaha ama meel business ganacsigeeda waxaa ku xiran camera caruush baa soo galaa la yidhi fideogana beejkeedu yaallaa shalay ma timid businesskeeda gabadha aadoo raadinaya dad madow raadinaya waa noo sheegtay laakiin muhiimadda ugu weyn caddeyn hadda wadato waxa waaye caruush oo raadinaya ganacsiga shalay arrintaas ma jirtaa gabadha inaad u dhaaratay telefoon uga dhaaratay iyo inaad ganacsigeeda timi shalay adoo ayada raadinaya okay mudugo horta waa mahadsan tahay qofka markuu oo qof soo dacweeyo shay kasta oo qofka suspectiga uu soo dacweeyo uu ka heli karo oo dowladda ama lawyerkiisa uu la wadaaga saa raadsanahay sida adreeskeeda meeshay degan tahay meeshay ka shaqeyso sawirkeeda magaceeda oo saddexan ID numberkeeda haddii uu heli karo qofka oo dacwada wato asaa inuu inta raadsado lawyerkiisa la tagaayo iska dhaaf inaa meheradeeda tagay 800 kilomitir u daraafgareeyey inaan ogaado meesha ku nooshaa iyo waxay qabanaysa inaan ogaado dokod yareena ku jiraan USB iyo ku jiraan lawyerkeyga aan u dhiibay ma fahan lawyerkeyga ani aan u dhiibay muhiimadda meeshaan social media ma oo gabadhan ilmahayga social media ku caysa waxaan rabaa waxa ani aan idin kala hadlay inaan inta arki weysaan waxay idin kala hadashay kaliya inaan aragtaan ma rabi inaan ifaantiin rabaa waa ka baxa hal mar waa ka baxa gabadhan waxay isticmaashay aniga facekeyga magaceyga iyo wejigeyga isticmaashay wejigeyga iyo magaceyga isticmaashana xaq uma lahan saxna maan waddankaane defamation of character waddan walbana saasuu ka yahay sharci waa xaq uma laha inay wejigeyga isticmaasho ma fahan
gabadha ee leedaha maama laga kufsaday iyo ilmaha la kufsadane aniga if I'm involved hadday meel iga soo gasho ama aan si un ugu lug leeyahay wadanka sharciga ka jiray waxaa la aadi lahaa dowladdii waxaa la aadi lahaa waxaa idin weydiinaa hooyo inta meel soo fadhiisata dhehayso anaa gabar layga kufsaday caruushaana dulmano u ma aragteen ilaan hooyada dhagool maa way hadli kartaa codkeeda maa maqasheen muuqaalkeeda ma aragteen ayadoo video laga soo duubo ma aragteen ma meelay soo istaagtay ka soo gudub taas ma waxaad aragteen gabar inta meel soo istaagta anaa lii kufsada ninkii kufsadan aad ninkaas iga soo dayay iyadoo dhees ma aragteen ma aadan arkin gabadhan waxay u bareertay inay magaceyga iyo muuqayga ay damage galaysay u bareertay waxay u bareertay inay ilmeyga aflagaadiisay u bareertay waxay u bareertay inay dadnimadeeda iyo diinteeda aflagaadiisay u bareertay ayadoo wadankii igula nool maraykan kuma noolo yurubna ku nool meel kale kuma noolo hal mar oo ka baxa buugaan waa ka baxa aniga hadda gabadhan dhib nagama dhexeeyo inaan dilo iyo inaan dhibaateeyo inaan caayo inaan sabirkeeda soo qaatay inaan muuqaalkeeda soo qaatay inaan u jawaabo iyo intaas dhan mana liga baran mana igu lahan wadanka isla wada joognaa sharciga aniga iyada ku kala bixinaa wadanka ruulka u yaala ku kala bixinaa warkeygana intaasuu ku egyahay hadday iga qaldan tahay iyo haddaan aniga ka qaldanaabo maxkamadaana kala saaraysa aniga iyada okay abti gabadhaani hadda sharci kamaysa dacwoonayn annaga ku niriba haddii wiil aad haystaan maxaa sharciga u aadi weydeen ayadu waxay ka dacwoonaysaa South Africa dad baa la isku diraa meheradeedii baa la yimid adigu gabadhaasi wixii sharciya de waa sharci waxaad ugu xaqle SSDF صح مود قلت صاحب نطليه أنا دقرتني نكر أنا وعي قبلنا ولا هذا اللي برت السوق لا وح نحن كسوق الشيء وقت مرة ما تقانا هوش نان نبغينا مرة بنو عن كرجنا فلنقو برت عن ولا ما يأكادي هل منا أكور مسنية يانا قولك صافور ويل كان وحي أد أكل هذا أو ما ترى نو شيء سهل كان كعطيسه هذا وقت موادكتي ويل كان وحي أد كسو إيدني سؤال هذا هاي يانا وجهك يانا وجهك يانا وحرا يانا wiilkan wuxuu soo eedeeyay video hadda uu keenay adigana waxa rabaa wiilkan dhibaatada ku geysanay cadeymahaagina la timaadid markaas ka bacay dadka u dhibno gartaada CK ee dadka saaran wixii qaldan oo meesha ku jira idinku isku dhaaran idinku is dhibaateen idinku cidnacayn qof walba gartiisa inuu dhibto asagana ma raba inaan dulmiyo adigana ku dulmino laakiin waxaan dhageysanaynaa hadda wiilka garbu dhibtay cod buu daaray adigana soo koob ra'yigaaga wiilkaas wuxuu adiga against ku yahay dhibaato ku geystay sheego asoo waa sheegtay dhibaatada ku geystay ilmihiisa ba ka cayay sharci baan la aadiyaa wiil waa dilaya ma oran adigana waxaan rabnaa bal dhibaatada inaad sheegto soo kobti ma bilaaba walaalayaal horta waa idin salaamaya dhammaantiinba ninkan waa idin sheegay horta aqoon dheeraada ninkan uma lihi hal gabar iyo hal wiil baa ibaray aan garanayo baan ku bartay wiilkan hal maalin baan is aragnay halkaas maalin baan igu dambeysay wiiligay intaan qad soo fariistana wiiligay qof wuxuusan ahayn kama sheegin ani ma fahamtay wax arin dhacday oo dadku wada og yihiin oo marqaati haysata baani ka hadlay oo la soo wadaagay maadaama qof qadka ku jirta aan ahay ma fahanteen ninkan maqaaxideeda laba jeer buu imaaday maalintii sabtidana wuu imaaday shalna wuu imaaday sawiruu ka qaatay waxaas aniga dib ma igu haysaba dib kaliya waxay ugu haysaa labada nin oo la soo adeegsaday ee gurigayga bartay aan ku noolaa ani ilmahayga aan ku haystay yimaado aniga iraadinayo in la isoo adeegsado ka daayo koolka gabadha aabba waa lagu maqlayaa hadda lagu maqlayaa koolka iga dhaaf walaalayaalow labada nin oo gaariga watay oo gurigayga imaaday oo aniga maxaa la dhihi jiray ninkii xataa dariska aan ahayn magacayga aan garanayn loo sheegay la yidhi gabar Soomaali ayaan la yiraahdaa ma meeshan ku nool intii loo yimid intaas unba sababtaas baan u soo hadlay aniga u soo qayliyay because nafteeda in la wax la gaarsiiyo ma doonayo ma fahantay waji aan maxaa la dhihi jiray waji wanaagsan intii la tuso hoostana wax laga qaso oo la dhaw proof hala keeno cadeen hala keeno ilaahay baa og ninkan wuxuu damacsan yahay wuxuu rabo inuu galo ma fahantay laakiin waxa aniga igu dhacay waxaan arkay un baan idin sheegay idin la wadaagay walaaliyaal okay dadka ku yimaaday dadka ta kale dadku fiiri dadku way isku dhacaan fiiri walaal aan dhamaysto waa idin deynaya dadku way isku dhacaan qadka lagu wada jiraa ninkan lambarkayga wuu heli karaa dad fara badan oo isku maxal li jira uu yaqaan aniga yaqaano isagana yaqaano uu yaqaana uu raadin karaa walaalayaalay walaal abaayo ay iga qaldan tahay iga soo garbax caadi buu ii soo raadsan karaa ama sharci caadi ah buu ii adeegsan karaa ma fahantay haddii maxaa la dhihi jiray dad la isoo daba dhigaayo dad hore baa jiri lahaa qalad ka galo dad isoo daba dhigi lahaa ani oo dad isoo adeegsan lahaa
oo xiirana ma fahanteen okay ninkani cadayntii mid waa noo sheegtayo meheradaad inuu yimaado horta guriga fiiri guriga camera gurigaaga yaa male yimaade caddayn miyaa haystaa inuu gurigaaga yimaado guriga camera male caddeynta kaliya aan haysto waxa way maqaaxideeda inuu imaado uu sawir ka qaatay taasna kaamiradaa duubtay kaamirada marka hadduu wuxuu yaallaa miyaa luuqaaga ma noo daari kartaa dadka matuska dhaa mudug taa asaaba qirtay ma hore uu socotid asaaba qirtay maya caddayn pagekeygu yaala ma hada wuxuu qofka wuxuu asaga qirtay maxaa ka raadinaysaa asaaba qirtay wuxuu okay dhawaaqay video ma soo duubtay ninkan aan dhegaysanayna hadda oo aad ku aflagaadeenayso adhehaysa ilmihiisu saa samaynaya aad dhehaysid oo hadda uu noo daaray videogaas maxaa uga jawaabaysaa videogaas horta waxaa uga jawaabayaa ninkan horta anuu idiin sheegay aqoon uma lihi gabar walaashay oo 17 sano jir ah oo hooyaday dhashay oo 2022 ahayd ninka lambarkiisa xataa markii la isoo diray blog way iga saarnaa bloga xataa waa ka qaaday ma fahante aniga wiil oo hadda xamar tagay oo deeq la yiraahdo iyo gabadha walaashaya banaanka isku raacnay wiilkaasaa wiilkan i bare ma fahante buura aadnay waa soo cuntaynay waa soo wareegnay xaafadda ku soo laabanay walaashay jaakad ay leedahay way gaarigiisa ugu hilmaantay way la hadashay waxay tiri abo jaakad aan leeyahay baan gaariga ku hilmaamay ma ii keeni kartaa haye gurigii wuu imaaday ilaahay baa igu og qof ashaata ah weligay been ma sheegin runta igu imaada ani jaakadii ay soo qabsanaysay gabadhii waa ku dhegay gabadhii oo xanaaqsan ah gudaha ii soo gashay waxay tiri abaayay ninka saan igu sameeyey maxaa la dhihi jira jaakadii anoo kasoo qabsanaya aqoon uma leeyahay markaas unbaa arkay ani ninkan wuxuu yahay ma fahante tan kale wuu la soo hadlay ayadoo saqiir ah waa ninkii dhahay lacag baan kuu soo dirayaa pe igu imow familygaagan ha u sheegin siiba gabadha walaashay ayaan ha u sheegin waa ninkii i dhahay kitaab jaamac xataa idiin mari karaa ma fahanteen waxaan been ka sheegaya ma aha ninkaas horta halkaasaan kala qaaday ani markaas ay igu horreysay ninka naceebaan u qaado ma fahanteen inaan fiiriyo horta fiiri qaladkayga ani waa qaadanayaa inaan iraahdo gabar oo u dhalay ba maxaa la dhihi jira ooga baqsanahay inuu ku dayo horta waa ku qaldanahay aabbo soomaaliyeed waay ma fahante dad aabbo fara badana waa jiraan ilmahooda xumeeya oo u dib mara aana ka xishoonin adduunku sidii hore ma aha ra'yigayga un baan ka soo hadlay anigu qaladkaygana waa qaadanaya waana ka raaligelinaya ma fahante waa fahmay ninkan waxaa tiri inuu idilu rabaa dilkuna wax weyn waaye ninkana wuxuu yidhi sharci baan la tigsanaya anuma deliyo inuu ku dilayo see ku ogaatay kaamirada kow nimankan xagee ka socdaan nimankan gurigan le keenay oo aniga i raadinaya xagee ka socdaan abow ii sheeg aniga cadowga kale aan leeyahay maxay tahay weligeeba niman la ima soo diro waddanka sanadka hadduu dhimaato 7 sano marayaayo waddankan aan joogaaye okay niman baa ku yimaaday South Africa maalin walba la isku diraa hal wiig 7 wiil oo Soomaaliyeed lagu dilay waa la wada ogyahay cid ka hadashana ma jirto aniga inaan nafteeda badbaadsado unba qadkan u soo galay isku ilaaliyo because biri haddii nafteeda wax la gaarsiiyo waxa la dhahayaa waa South Africa iyo xaalkeeda ilmaan haystaan oo hooyo aabba u ahay dib nafteeda inay soo gaarto ma rabo qof shaqaysata ahay ma fahante okay waxa yiri marka arish horta video way qeeratay oo ayadaaba leba taasoo ka raaligelinaya oo ilmahaaga adiguna waxaa tiri sharci baan la aadayaa sharciga xaq waa u leedahay sharcigan isla aadaan noo ma diidanin oo dadku sharci isla aadi karaan dowladuna dad ma dhibaataysay xaq u kala qaadaa oo qofkii khalad leh baa markaa sharciga lagu oofinaya laakiin midda anagu aan ka dabaqtayna waxa weeye gabadhan waa la dilaya waxaas sheegaysay inaa meesheeda timid halka su'aal raba waxa aruushu meesheeda maxaad u timid ila qofka waad report gareyn ka adreeska waa heli kartaa waxyaalo badan meesheeda inaad timid soo sawirtay mudugo abti macaan anoo adiga ku ixtiraamaya horta awalan waxaan kaa rabay maadaama ilmo saqiir oo aniga aan dhalay gabadhan inay inta caytantay ee ilmihayga ay caysay cirdigayga iyo sharafkayga ay ku xadgudubtay ayadoo aqoon ii lahayn muuqaalkayga isticmaashay hadda mar kale ee been iga sheegaysa ay leedahay 4 sano ka hor oo gabar walaashay inuu kufsado rabay ee qalad kale hadda iga galayso horta awalan waxaa rabay inaad ka hadashaan qaladka ay gabadhayda ku samaysay inaad ka xuntiin inaad ka hadashaan waa ku bari hal mar ii kaali gabadha intii hadlayso waad dhegaysanayseene fadlan hal mar aan kuu dhameeyo biliis aan kuu dhameeyo fiiri gabadhan maadaama ayada ay dhahday gabar inaan aabba Soomaaliyeed waaye
gabadhiisa inaan ka hadlo waa ku qaldanaa maadaama ay hadda dhahday ee public ka dhahday niyo aniga gun ma ihi fiiri gun ma ihi dadka wax la qaybsan kara dadkan iska dhici kara ilaahay iga dhaliyay ma fahamtay maadaama qaladkeeda ay qiratay ay dhahda qaladkaas aan ninkan ka galay cali cadaa waxaan ka codsanaa hal mar inay weyneyso qaladkaas ay gabadhaas publicaas ay ku xiratay waa iska cafiyay ii weynay hal mar kaamirada ii fur waxaan ku tusaa hal mar ii kaadi hal mar iga raali naqda fiiri hal mar iga raali naqda على عداوة هل مر إيه كذا بهالكان وأنا أي ديجي صوت أفريقيان كواي ماشاس وح يجود جرتو ورقد وح يجود جرتو وأيدين تصا وأقرب كرتينا إذا كوسو دبينا صوت أفريقيان بوليس سيرفيس أكو قرن كوميونيتي سنتر هل مر إيه كذا ديت كو وجدين قبضنا أنا الله يرى أذيك سنة إلى قد أوصله بصدق المية قلت كجشيء عن قد أوصله بصدان ربي إنا مال إنا سعد وجهر ما أنا ربي فيري تامر كان كسو تغو إنا أديرو قعلي وحان سوشيال ميديا واي قفك وحل روالا ديه كرا وحل روالا سمي كرا أبو إلميهيس إن لو قد بأما هو إن إلميه لو قد بقلط واي أيضا ما دام قلط كاس إيه قرطي أماشا سأوهر كيس كيدا وحكوسو هاري إلا رادينايو أنا أدريس كيدا نواهلي ماشي كشقيني سنواهلي نمان ديتكتيفان أوديبي وارنت أوف أرستا سيستم كلو قلي meel allaala meesha lagu qabtay in inta la xiro maxkamad ay fuushay ahayd keeskaas waa drop gareena meeshaasaan ugu haraa waxaa kuu soo haray keeska kufsiga ee ku celcelinayso fiiri wadankan sharciya ka jiro ee ninkii dhahay mudugaanka South Africa dadka ku nool waxaas loogama sheekay karo laakiin dadkiina meesha saaran ilaahay idinku dhaariyo wadamo sharci leh ama aad ka imaadeen ama aad ku nooshiin ama aad aadi doontaane ma qofa intuu qof inta kufsado dib u geysto shaati cad intuu iska wato magaalada iska socon kara waa defamation of character waa sumcad dil kala waay ومحل دي جري قلت كل وقفك وسمينا يواي إلما أديرو قبضاس ما دام أنا أي عوش إيجا أهد أنا جن عايدين شيء إن كيس كفري كيس كأن كفرنا أوها المية درتيسة قبضاس قلت كأي قرتي جن مي ماشى سوق هري وكعفي أوكي هل مر على هل من أربعة وإذن سينا هل من أكوسو هرتي قبضنا أنا أقول إيمالهن إما تقارن ولين أنا إذا ما إسقما أنا صهر بحن سوير كيجي مقالة يوحي إيه استعماشنا مر لبعض غلط كلو كيه أو وطن كجودي سقطوا كيه ومسيوس أي دين تقف إن توجهي استعماش هذا غلط ده أيضا وكعفي وفرح وقاعد حل من ده إيسا ميسو هدي قبل ده عشت لا ده إيه طل لا ده إيه والد لا ده إيه ولا لا ده قف برؤدن قدون هدي لا ده إما تقانو ما أقاني وحب إسقما كان درسنا إسقما المجوجنو مجعيجة إيه مقل كيجة إيه موقع إيه مالدم بأن تاجنا قبل ده يالله أركن أنا يهدي اللي وارك أنا دم بيلا بنان أطلع أن كلامنا أنا بسم الله الرحمن الرحيم سيكي هل قد الصدق أنا لو قالت نودي وين سيني أنا وكاجب حيا هل دقيقة هربان لوضع لهذا واحد عم فاسيو عروشو مركور إذكي أيضا دقيسنيني قفل بسؤاله وقمع ودينيني كبعدي ما وحي جوعنا لودين إذا كنت شدينا جودنا سئيش شكتي أنا كفاميلي وأدينا أبتبان كواهاي قرتنا وحى الربا مركا لودين أدو سفاح ما أقرن قصتي وأنا عفيسي جودنا وحي حق الله هذا هاي أنا أكون حكومية أنا أيد فاميلي وذاك سئيش شكتي جودنا وعور حود أنا وعور حودها أنا أبتبان كواهاي مركا قرت هذا ديبتين هذا عيد كحمين سامع عدالة دركو حق يسمى جرتو وحي جودنا سئ مسؤولية الله هاي أنا كمسؤول أيد متقن هداية أنا وتجي لكن أنا كل نقية وحي حق الله هاي واحد حق الله لو وضع أنا دي الشيء كودنا في ذو بكسارسا وأنا حكمني عدينا وحرمنا بناك كمرتيد لكن وحن سيني سيكي مركو لما يستوى أريتها إذا قليها إن شاء الله كسر بسم الله الرحمن الرحيم أروس واكو سلامي إن أبايانا وسلامي هرتا أروس باسو مفوقة إن وأنا كم عسنتي قبل وراسة أنا تري قلت قرطي وعفيي waxaan ka rabnaa marka niyow inaan anigoo ku hadlayo afka dhalinyarada daawanaysa waxaan waalidinka duubayaa labadiinaba horta waxaad joogtaan qurban nacas meesha ugu xumeyd South Africa gabadhaas walaashaa waaye waa la isku qaldamaa say kuu sheegtayna waaba qiratayba waxay tiri aniga wax la ii soo dhiibaan geeyey dee reaction waa la iska bixiyaa adiga inay kugu xadgudubto caana u tahay laakiin in maaragta familka ay gasho وين كتر وأكو قلدنا كتر أنا جرشة جرتنا في صباح في عمواء بعشوا ميل فوق مجوكتو لبدينا قربنا عاس ماشي وروح من سود أفريقيا جوكتان وداس ولاشة وأروسو إن واحد للسيود وضو واحد السيوي ديسان ماشي مطالبة أيضاً إن يسن دب دم أفارها أسوق جلين أي كنا بتجلسوا
haddaad balaayo walaaqanayso iyo haddaad jinni kufsanayso iyo waxaaba ayan kaa soo hadal ilaan maxkamad adiga lagu daba dhiga maaha adigana gabadhaa waa iraadinaa dambe in ayan maaragtay dhihin oo banaankaas ka marto ayadana walaashaa waaye ay banaankaas kaa marto labadiina South Africa joogtiin ducaaba u baahan tihiin ilma adeerayaalow meel dheer idinkama taagna arooshow saa gabadhaas u cafisay walaashaaya iyadana cafisi masaamaxa ku tiraado is cafiya wax kale oo weyn ma yaalo meesha ma ka dhex geli karaa CKO yaa intaad hadlin ma siisanay hay ku soco soo hadi okay horta ilma anigu waxaan dhihi rabaa ninkii gabadhii horta marka waxay tiri khaladka waan galay social media marka joogno oo aan leeyahay I know inay khalad tahay laakiin aruusho my brother dad marxuumina social media lacaaya macallin waxaad arkaysaa dugsi oo ardada social media ma taqaanaa dugsigiisa afuufayo la keenaya oo dad ay ku taageerayaan qabiil baad arkaysaa inaad yarow hadal bay ku tiri ma fahantin sheekha tahay aakhira maalinta ilaahay ba kaaga jaraya inay dambi ognahay laakiin inaad dambi gabadha ma taqaanaa aad ku xukunto waa laga fiican yahay saaxib waa cafiyo ما هو كفاسنا يسيك ميا أروش هوس كسي أنتوا عفيف سيك برادر لسن أنتي ما أنتوا عفيف وحاجة هندبات بكسي زر ما فاهم نفهمت ما فاهم معناها مركز وين ربي بوكيري وين ربي ما يفيري أنا كهذا كأبدلنا وين ربي إن نسميه وقرش سنابو كهالله الشرعي وكهالله الشرعي مرة هيد أسوق لأنه الشرعي وما مريا أنت سيد أروش أنا ودارني مو جان ما يفيري هذا الكلام أنا الشرعي gabadha kaliya markiyaan xukmunin war hadda idageysta baasha naga xumeynaniyo labadiina ninkan wuxuu idin yiri qorsheyga waxay ahayd inaan gabadha xiro ama god ku ogaadiyo waxaas hadda waaba cafiyu taagan yahay gabadhaana waa walaashi ha hal mar ma isiisan si fiican wada sen nomo waa kaaraali garena igu qaado walaalka hal mar igu qaado على عداوة ما دام قولك يا أجوجنو أو أنيجا درتي درستاس درت بس إسكتناقة سيد مرك ورب بنان لكينو حالا ده إسكتر مسكتر أنا نين هذا الأقوى مئي فيري نين هذا الأقوى مئي أديك إسكتناف كل على عداوة صاحب كيه هدي تمنقف فوت وأديك وكلا إما حتى أنا هذا الواسقة إكاه على عداوة وركي هذا سيف عن دقيسو أما وهن جبته أما بدو قال ده أنا جبتنا أرنتين ويبتنا ما تحقق فوت إسكتا ما يويبتنا ما تجبتنا هل مر أديك دقيس على عداوة aniga qofka cirdigeyga iyo sharafkeyga iyo ilmaheyga iyo reerkeyga ku xad gudbo haddaan qofka dilo oo naftiisa aan gooyo ilaahay xaqiisa ahlu jannaan ka ah hadduu asaga idilana asaga ahlu naar naqanayo waa sida diinta ay sheegtay hal mar ku dhameeyo qof Mareykan joogo Canada aad hadda joogtaa haddaad aniga qalad iga gasho intaan fiisaha ka helay bisa jaanis haysata adi maalin ku fiisa ii soo baxo meesha joogtaan ku imaana sharciyana kula maraa حقنا والله أنت صار أنا ما حورك يوجدني أنا واي ورك يوجدني قبل ما أنت هديت قبل ninkan caruush la leeyahay oo qadka soo fariisanayo oo dhahay sheekh baan ahay quraanka aqrinayo horta qof ilaahay diin bare weey aba waxa dhigeyso waxa taas ma diidan ma fahanteen hal ere oo ninkan uu yiraahdo ha aaminina aniga meeshan safe ma ku dareemayo waa ninka ilaahay halkan xataa leefka ka hanjabayo وداعي يوقف أنا يقص حد قد بي فاهم جي قص حد قد بي ديجي سحلال بيجي أنت واحد لسه شيء أنت ولا عايا واحد ما بيج ديل ولا قصي سعدا واي سكيد يسوي وين وهذه محل شيء إن نفط هذا لجوينا يعملوا كله قف واحد يجي شيء نفط هذا وجوينا أدر واحد ما نقاناني ده كان شيء واحد ما يقانا قف واحد محل شيء لسكو قبت لسكو أفجرون ويقف كد لعينا ويلي جاي ما أرك ما فهمتين أنا قبلي قف بن آدم والله وحو سنين ويلي دوشة كمان صارن يعني يانا نينك ودن باس لا جوجنا ما فهمتين يانا كلام حتى في ريال دغيستا هورتا ابو اندميستو ودن كان يال ان كدعدعسين شرعي با كشقيال ان كدعدعسين wax walba laaluush waay maanta hadaa rabo case beena inaan soo furo detective aqaana askar baan aqaana أنا أصحاب أنا ومشي ذا كقضية كعنتية أنا لا هذلي كرا حوغا لعجة أدري كرا ولا إيسو سمين كرا واحد بيج ديلا مع ماشن شرعي ساعة ما كتشرو
runta haddii la isku sheegayo waay ninkan marka wejiga oo idin tusaayo oo idhahayo aniga qof wanaagsan baahay qof aniga isoo intaas waa la soo dilmay victim cardka uu qoranayo wax ka jirta haba yaraatee ma jirto ma fahanteen nafteedana waa uga baqayaa because way ka suurtowdaa inuu biri nafta idhaafiyo wuba ku dilayaa aniga kuma shuqul lahayn dhegeysta horta inaan ninkan inuu biri nafteeda idhaafiyo u dhaho naagtan kuma shuqul lahayn dee waa xaaladda South Africa waa ka suurtowdaa I know anigana safety ma dareemayo meeshan safety ma ku dareemayo batatanba you understand haddiiba aad ka daqninaysid dhegeysa abo haddaaba ka daqninaysa qof baa waxa iga soo sheegay daaqadka laguguma talagelin iskaga bax waa iga fadlan because qof walba waxa iga soo sheegaan naftiisa dhib gaarsiinaya haddaad tiraadid xanuun wey adee xanuun kugu tahay you need to heal walaal waa inaad therapist aada you need to heal yana because waxaan jiro waan yana adaa iskala biliis khalad ay fahmay sii keesay xabsakan waxaa noo imaaday sheekh cabdiraxmaanow qofka muslimka ah qofka dila dhiiggiisu maxalal buu yahay su-aashaad u jawaab sheekh cabdiraxmaanow بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكادس هي شغل شيء نمر واحد سوق خير الله ينسيه لما أنت وسلام يا ورالك قول كوري على عداوة قولك أنت داوانة جديد كونوا داوانة يسوع لما أنت وسلامتين. سؤال كتب ولا ليال قفكم مسلم ك دي جيس وحرام. الله أكبر. لكن السؤال شقاب كل جود يهرت ما فهمت. نهرت من الجسني صديق. سوق فهمي ولا أنا ولا صعد كل واحد. ما هذا اللي يسني اوكي خير الله كسي الله انا بي قفك مسلم كاه قفك كلام مسلم كاه ديجيس واك حرام النبي عليه الصلاه والسلام حديثته ku sheegay quraankan waa lagu sheegay qofkii hal naf ee dilo wuxuu la mid yahay fakaana ma qatala الناس asagoo dadka dhimay ومن احياها فكأنما ما احيا الناس جميعا wuxuu la mid yahay qofkii hal naf nooleeyo dhimaneysana wuxuu la mid yahay asagoo nooleeyay dadka dhan marka waa inaga reebtay shariicada in qof muslim loo hanjabo ama la dilo ma banaan ilaa qofka markuu naftiisa difaacaya haddii uu qofku ku soo weerar nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaam qofkii reerkiisu lagu soo weeraro oo weerar kugu soo qaado oo marka aad disho waxa weeyaan ahlu naar qofkaas haddii aad uu ku dilin ahlu jannah waxaad nabiga ku sugnaaday haddii uu ku dilo faanta shahiid laakiin haddii intaad aad gacanta kala hormarto aad disho qofka waa ahlu daar laakiin video leega soo qaatay oo aniga tusaale ahaan maanta inta la soo qaatay xogaha le aflagaadii ama wax leegu sheegay ama family wax laga sheegay ama qof wax laga sheegay dil gaari maayo xukunkaas dil ma gaarsiisno walaalayaal in qof muslim dil ugu hanjabta waa arrin halisteeda leh nabiga wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofka intuu diintiisu ku sugan yahay kama zuulo ما لم يصب دما حراما لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قفك انتو الدين تيسب عنك دح جوك كمزولاي يعني مع عصيدا كلي وحان ذنوب تاني وحان كلي إلهي قفك ودافع دو قف التوبة كان عمر الودافع حديثك عليه يعني رمضان إلى رمضان الرحمن سوق قال حتى مرة وحان نوقش سوق قال عبد الرحمن سوق ولا برمينا سيدنا نمر ولا كبح سوق غير لك يعني مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هذه كبائر اللي فوقات كبائر دلك كمدة دلك إن قف مسلم أدي الشوب ما بنانه ولا لكن حليه هي إسدج أنا أقول لك كمان وجبر ولا شيء وأنا جبر مسلم ده وأنا جبر مسكين والله هداي ما كيتر هو يعني هي وأنا هي ولا لك فيديو وأشر قري أسوق أركاي وأشر قري فيديو قطع أركي وكان حيني وادن قضي marka walaalayaal insha Allah taala dil yaan la isku hanjabin hanjabaada dilkaas ku hanjabaysaa dambi aba dambi laga qoran qof u hanjabto ku dil aad tiraado aba dambi ku faanandi oo qaar Allah insha Allah taala one second ka hor maro one second inaad maanta dan carabka iga istaagaysaa ma waa hadla si kama ma hal mar xataa ma inaad walaa waqtina hal mar ala cadaawa raba inaan middo neew ala cadaawe baashan meel dheer ma joogin inaad adaa dib noo celiyay aruus wuxuu adiga xanaaq adig kugu yiri iska dhaaf aruus nin qalbi fiican waaye kaamiradu noo furay walaashii waa cafinayaa buu yiri walaashii waa qiratay in cunugtiisa ay ku xadgudubtay labadooda qurbanacaasay joogaan muhiim waxaan intaa dhan hadda ma gaari lahayn على عداوة هذا قدال نوع لهن
عروس قبضها ولا شيء وعفي يري قلت كعنوكتي ذا كقش أيضا والالكد وايها اسك عفيدو لبدو ذنا بنانكاس هكلا مران هرتين اسكو دهايان إني بنانكاس كلا مران عروسنا ولا شيء بنانكاس وكمران أنا مسؤول كنغنينا قبضها ولا شيء iyadana waxaa leenahay abbaay macaan qofka in 15 sano reaction bixinaya qofka inaa ka hadasho markuu caan yahay waa sax asaacaan noqday wanaag iyo xumaan in laga sheego laakiin qofka xaq looma laha in ilmihiisa laga hadlo ee social media la keeno waana tiri si wanaagsan u hadasho waxaa tiri waa ku qaldanahay aroosna wuxuu yiri waa cafiyey waxaad hadda u sii walwalaaqdaan oo walaal wiilkaas iyo gabadha walaalaha aad ilma adeerayaal oo bahashooda u fogeedaan mudugaanga iyo cali cadaawe ani uma jeedo نيو أروسو أنا دبركي قال أنكو عشتو إن هذا ولاشة سوي عفسها كأهات وهو دمر يانا أدينا ولالكا ولا بدي إنه بصوت أفريقيا ومال إما تكون نوشين بس نساها ستا ولالكا وحكا لو ما أنت أسكوها ستا مجرو أهين إن رياكشن أكسب بعدو كحناقي أبا معه وكو عفيي نكا وحيري إن قبضها سحر يوحاس بوليس كدعويان ربي وحن دلدل كان إلى الشيء على عداوة أنتوا لو هذا كحناق موياني أروسنا أباي معاهم كدير مايو سومالي محمد ودنا ما ركت كدقي سنيسو وونو كعفيي مر لوادنا اللي وعفيي أباي معاهم أذن إسك عفي لبدي إنه بباشان يانا ما ركتي مال دير اللي إذن كجارسين بالله عليكم مال دير إذن كمجوكتو عروسو دبركي قال أنا صو أفتر ما يجي هالمر بس صو أفتر لاين عذرو دب نوع علني سنة هالمر إيه وقال هذا أنا دب معلن وافد ذي أنا هاي النمر برادو رالي هذا ما نيو فيري واحد نيو فيري إزميلا دي شيء نكا سؤال بدأ أقبني هدا قبل قريتها أصلاً وعفي نيو بلايات دبل قبت مالها أفلا قبتها لهذا وركان واد مسترين هاي نكان كليه أنا يو هذا بدنا أقبل لكن هدول يرنيو يقول ميه أنا قرت واعفي نيو وما سنت لا القرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بأنه أقاربنا أروسو ما شاء الله أرنك آتري وعفي ولي كأنه ولي إلى سجود ودعوس قبل أعبد ورا أسعود ثارنا قبل أنا كوسعت أبايا هذا سيف دريمين نكان ببلغ وكهلي والله وذا مقليا طول باكرلتي سومالون باكرلت والله ورقبيا طول كان دب والله نكان إجاي فكرها أسلك جارينا ورك أنت كنا ما وحلا سي وذا ماشي مجران ما شاء الله كليه وعلى شوية عروس شو مدو أنا كسوق طبعا هذا صوف جريب فيري هذا صوف جريب فيري قبل أرتوا qof dumar oo anaga nagu jirto inteena hadda meesha saar ragaana kaligeeda nagu jirto intee meesha saaran tahay saxeedana waa sax qaladkeedana waa sax mar hadda waaci aan dhaw wixii rabtay ku hadasho meeshaas gabadhaas uga har xaq iga dhigtaas cali cadaab adaa ku soo noqona dadka hoos jooga walaalaha hoos jooga dhan oo ilaahay qolka dhaxdhaxaad ma hay meesha isaga dagi meesha yeela muuqaal ana hore u soo duuha ii baqina hal qof iyo laba qof iyo shan qof ay iga baqina ilaa 10 qof ay iga baqina cali cadaab hal mid aan ku sheega oo dardaaran damba ku sheega qofka haddii cirdigaaga iyo sharafkaaga iyo dadnimadaada iyo diintaada akhlaaqada hadduu kugu soo xadgudbo way loo maraa jirto haddaad yaraantaada wax soo baratay oo qof wax soo barta aad tahay hadda inaan kuu sharax uma baahnaan lahayn haddaad yaraantaada wax soo baranayna waa kuu sharaxa haddaan dhaho ways yees ay kugu qaadanaya wax badan ma fahmaysa ma fahmi gabadha toobigeeda xaggiga dhiga xagga uga hare namayo anaga munaafaqad ma naqaan dad munaafaqad yaqaana kama dhalan inaan qof kala dagaalno cirbaha kala dagaalno banaankaas kula dagaalno waa naqaan inaan qofka banaanka isaga marnana waa naqaan gabadhaas arinteeda iyo waxeeda wax aniga xaqiiga shakhsiyadeeda ka soo noqonaya ma jiro waa habeenka xala tagayo oo aan dib ugu soo noqon waay tii aan ku celiyay haddaad hanjabaad u aragtay iyo haddaad hanjabaad u arkin cala cadaab adaa ku haysta aniga gabadhaas dhan toobigeeda iga daa haddaad hanjabaad u aragtay iyo haddaad hanjabaad u arkin qof allaale qofka aniga cirdigeyga iyo sharafkeyga kusoo xadgudbo iyo reerkeyga ku xadgudbo meel allaale meeshuu joogo aan tagi karo xoolo iyo xoog aan ku bixinaa maxkamadana la fuulaa haddii meesha sharci ka jirinne shantiida isaga reebaa ma fahmi intaasaan ku dhahay in adeer waa ku ismeeyey waa kuu imaaday qolkaagaan joogaa nin boqo iyo nin loo boqo iyo nin loo diyo toona ma ii ma fahmi toona aniga ma ii adaan kula hadlaa sidii naragoo kalaa kula hadlaa gabadhaas saxeeda iyo qaladkeeda waa saxa igu celinin ali cadaabe isku day adiga inaa aniga wax iga sheegtid isku day uqsum billaahi fiisada kanada markaan xareey intay fiisada iga maqan tahay bas adiga banaankaas taagnaane علي مودي قال لو اللي صاحب علي كان على عداوة كيس عروش انا اوعي
أنا وصاب كوعي أنا أبتو أكوير أبتي كالي أنا عروشكم كاي تقنان بأمانة حسكون هاي دتكم ما قرنيان قبضن أنا جينا ديرتوي عروشنا الماء أبتبعنا أبتنا أو هاي لودان قف استقال اسمي قانان هرت بيرسونال اسمي قانان والماء بريل لوضو مركا أنا أريتو دقلية way dhamaatay ninkaasna muusan garanayn wasaab baan kala hadlay arintana uu soo gabagabeyay si sharaf loo hadlay gabadhana walaashiis waa in abtidiis marna waa habartiis dadku inta badan ma garanayaan halkaas ku dhameynaya aruush waa hadlay si sharaf loo hadlay abaayo adigana in adeerka aan ahay cid dib ku geysanaysa male wiilka walaalka wixii soo kala gaaray laba qof markay dagaal isku dhaartaan waa ku dilaya kana sabay waa caadi adiguna khaladaad baa samaysay wiilka wuxuu ku yiri in adeer cafi iyo masaamax noloshaada wado labadiina inta harsan anaa wasaab suukin keenaya dad walaala baatiin ma rabno in buuq yimaado أنا ودي شيء أري نينك وداني إن هذا أقول دميو إن هذا هل مثلي أنا أقول هذا يسوق إن أنا هل يسوق أبايو أنا ما من اسمها واحد مدقل أنا يسوق كل ما هذا ويل كاس أنا قرني أديك كقرني أنا قرتنا دميني أنت كهرتي إسعافية واحد ربع هدو إن وصاب سوقين كانوا أنت هرتي أنا دميو مرة بينا تشيدتان دميو سوقين هذا ها مرة بينا تشيدتان ها personality سنة وكوش دقيقة كل ما يقادو مركز لما يقادين هذا فمن أهانا ويلك كان هبر الباو تايس ما قرنا إنسان ما كوري واحد يبغى كوجي سنين متشرتو أنا ولا أنت كهدي وصابا كل ما يريا ما كله ماشية بوق يسأل بدن بك إيمانية أروح مرة بدو ولا لا بوق حماده والشكل من الفرح اللي والسؤال بدن ما أنا قبل بس قبل حياة كتاب كام على قعنتها يجي هذا الكلام ما فهمت أكورين هذا كأقول هاي وحكوهري لودي إن وصاب سوكين كان يبوق إنه بتمربه يا أنا كتاب إسلام هل من فيري مدو كانجيو ساعة اللي عدالي هل من الكهرباء إن هذا السوق ده هل من السوق ده كاو ده يعني كتاب كام على قعنتها يجي واحد يسوق wiilkaas wixii codsi ah ka rabtay halkaas ka sheegtay uu ku soo adiga waxa rabaa fiidiyowgana ka saartid ama hal ha noqdo ama laba fiidiyo ha noqdo wixii ninka ku saabsan iyo sawiradiisa inaad TikTok ka saartid cafi iyo masaamax aad tirahdid waxa ku soo haray aruush waana sharaftay nin odayaa tahay gabadha walaashaa way waan adeertaa kalsooni darada haysa inaad ka jaalbixi in adeer kuma haysto raallahu cafi masaamax waa inta hadhay si keenay u dhibi asoo si sharxo إن هذا أنا إذا أروش من مقلسة إن هذا رجع لي مدقان قبل ناس شرف له ولا هلا ومقلسة إن هذا رجع لي أروشو نيو ماركتي ولا لا أو إيش محلي هذا الدين الإسلامي شفع ويقانا تحي سأطري ولا شيء وعفي قلبيا نيو دار دمر واي كل جدي يلقى دمر نقل صار أنت سأشكت أعرفك ونفط وحبك كاتبين بهذا قارتان أرعسي إن عمره هالمر يدقيسيا ereyga u dambeeya dhaha live-kana waa ka dagaa mid mudugaa dhaha midna kulligiinaani dhaha mudugow sidaan kugu dhahay gabadhaas waa cafiyey isma naqaano hore iskuma naqoonin whatsapp ina isagu keenta uma baahnid gabadhaas meeshaasa uga haray cafis topigeeda dhan ina iyada ka hadlay ina iyada la hadla totally meeshaasa uga haray taas waa taas adaa ku dhaha mudug hal mar ii kaade qof walboo meeshaan joogo ima qalaayo Soomaali hore waxay u tiri meel hoo u baahan hadal wax kama taro gabadhan way idin la hadashay muuqaale soo duubtay Soomaaliya dhan ee la hadashay waxa la ii qabteenii dhahday meesha waxa uga bixi kara hal ii qoondeeyeenii dhahday gabadhan haddaad wax u qaban kartaan waxa u qaban kartaan u qabta aniga dhaar iguma lahan qofka inuu dhaarto oo kitaab la geeyo oo dhaaro la dhaho system iyo nidaam loogu yeeshaa gabadhan iyada aniga reerkii dadkii ku xadgudubtay aniga dib uma aana geysan ma fahamtay marka kaarkaas iyo barnaamijkaas ay ka hadlays gabadha ifahmeeni leeyahay gabadha ina inta fahantaan oo wax u qabataan isku daya iyada waxay ni leeyahay hoola u baahan hadal uma baahne toobigana aniga ugu soo noqon gabadha waxay idin dhahday ifahme labada waa u baahana meesha inay garab qabtaan u baahana inay idaaratina u baahana yana amu saaxiibo fiiri inaan qof iska qabsana ma rabno beejkeedu yaala ayadoo leh wax ii qoondeeya meeshaana uga baxo
inaad gabadha idinka fahantaan isku day idinkaa toltihiin ana iyada topigeena waba dhammaad meeshaas uga haray dib dambe hadday iga soo hadasho iyo hadday dib dambe iga soo hadlinbo warkaas dhan meeshaas uga baxa aniga waan wada salaamaa dib dambe haddaad qalad u gashay ama dad qof u dulmisana waa lagaa soo hadlaya public figure tahay abo hadday ku dhibaysa iskaga bax qadka simple as that يا رئيس يا رئيس yaana abbaay macaan soomaha badan adeerkeena ka gartaan lama goonin CK Yaana. iyo dhegeyso qof walba dhegeyso abo qadka markaa ku jirtid aad caan tahay aad dhib geysatid oo la wada ogyahay waa lagaa soo hadlaya aruus hadday waa ku baxana dhibaysa ka mas-uula aruus waa baxana ka اوكي mas-uula سيكي انا anigo nabiga ku salay maxamed hal mar wax barto u kaadi waa lagu siinaya hal mar nabiga ayaa soo qabtaa bayo waa la soo qabanaya hal mar nabiga ku salaynayo niyow aruus waa hadlay waan ku nabadgelinayaa meel looma dhaafo gabadhaas yaana ah hadda waxay ku soo celisay waa lagaa hadlaa aruus abbay aruus wuxuu ku yidhi haddaa iga hadashay haddaa i dhaaftaba kaama soo hadli doono afaaraadana ma ligu maqli doono laakiin hal mid asaga ka hadal laakiin abbaayo familkiisa u nabadgeli inaa asaga ka hadasho xaqa u leedaha caan waaye laakiin abbaayo mar dambe familkiisa ha ka soo hadlin caab waaye xaqna uma lihid haddaa public figure tahay asna uu public figure yahay qofka public figureka asig shakhsiyaantiisa waa laga hadli karaa laakiin familkiisa maya duca qabta ninkaas wuxuu ku yidhi bannaankaa kaa marayaa anigoo kin siikeya waa maqlayseen mas-uulaan ka noqday ummadda ilaahay hortoodaan ku weydiiyey inuu bannaankaa maraayo abbaayo macaan adigana ninkaas iska cafi bannaankaa kaa maraayo ku yidhi dib dambe kugu soo noqon maayo walaa maqaayadaada dambaada ku arkayn walaa inuu kaa hadlayaadan arkayn abbaayo ka har maxaa la yidhahdaa hoolahaaga kale iyo dadkaaga waxaa ka rabtaa hadda sheegaysid ku sii soco intaasaan qabnaa anagana aan kuu duceyno cafisi masaamax ukaadi marka ayaana horta ayaana iska hadalka saab ayaana hadlaya haabo mahalle ayaanay maxay tahay dhibta kale ku haysataa waa garanay tan asaga wax kale ma jiro firi qofka markaa wadan wada joogtaan iyo markaad isla joogin horta isku mid ma aha ma fahante anyways aniga hadalkan dheereeyo ma rabo wiilka wiil walaalkay waaye waxba uma qabo qof horta calool ku sid leh ma ihi ani waa la isku dhacaa maxaa la jira waa la heshiiyaa waan qaanaa ani ma fahante ninkan hal erey u dhahana ma aaminayo beri nafteeda haddii wax dhiba soo gaartay ninkaasaa loo haystaa hadda waa idin sheegay okay sheekada soo waxir yaa taasna u baahanahay caawin markuu yidhi maxay tahay problemka kale laga caawinayo aniga waxaa rabaa meel aan amni ku dareemayo in aan tago aniga wiilkayga because South Africa amni kuma dareemayo afrika uu cararays darteed in meel amni ku dareemayso lagu geemiya firi waay wiilkan arrintiisa waa xalinay sababta u tegeyso ganacsigaaga iyo businesska u tegeyso maxay tahay ya arrintii aad dhehaysay waan ka tegayaa meesha tan problemkii aad uga tegeysay waa midaan hadda wiilkan aan la hadalnay oo aad tiri aniga waa la raadsanayaa wiilkanna wiilaan garanayna wey taas waxaan ahayn miyaa jirto oo aad u safraysid mise hawlo kalaa jira oo problema howlo kale ma jirto aniga horta jooma igu dhacay wiligay madow aniga isoo raadsanaya aniga ama nafteeda raba dhibaato inay gaarsiiyaan wiligay ma arkin ma fahante meeshana amni kuma dareemayo waa idin sheegay walaalayaal xaggee rabtaa marka inaa aadid oo maxay tahay ya xaggee wey meesha kaloo aadaysid meelaan amni ku dareemayo meeshay doonta ha ahaato araba aniga wiilkayga gabadha caad u abaar brother no abbaay 8 kun oo qof ku daawanaysa Soomaali Maxamada qabiil ha ahaadaan ama Soomaali ha ahaadaan wax aad uga baahan tahay ama anaga uga baahan tahay aan garab kugu siinay ma jirtaa yaanay ama yaanay wadankan iskaga tagaa rabaa ma fahanteen xagee aysan marka wadanka tagto ama waxaan aadayaa Zambia ama Nairobi u guuraya meel aniga aan amni ku dareemayo aan ka shaqaysan ku noolaan karo guurkaada iyo meeshaad ka baxayso South Africa bixitaankeeda wiilkaada tigidhadaada meeqa markaad kugu filan haddii aad baxayso safaraadiisu adiga wax walba haddii la isku daro adiga 25,000 meelahaas oo dollar because passport inaa u xareeyo waayo wiilkayga anigana qaxooti baa ahay qaxootigana passport kuma xareysan karo mudugaangi iyo siika igala wareega marka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مدوغان كاور مر الله عارف بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم horta yaana waxaan uga mahad celinayaa sida sharafta leh ay noo wada maqashay noo sharaftay cafiska u qaadatay ayadana walaalkeed isaga cafiday abbaay macaan qolka fikirkiisa waa loo tixgeliyaa waa kuu tixgelinaynaa fikirkaaga ah in aad rabto inaad hadda meeshan aad ka tagto laakiin abbaay macaan qofkii walaalka ahaa hadda iscafiseenna bahi si calool fiyow annaga dadkoo dhanna se ugu qayb qaataan maaragtay oo adna lagu garab istaago markasta gabadheenaa tahay hadda mee waxaan kugu dhalatay oo aruush cabsidiisa darteed inaad maaragtay aad meeshan uga qaxdo ood rabto inaad lacagta laata ku lagu siiyo mise hore u rabta caawinaadda hadda igu dhalata walaal bismillaahi araxmaan raxiim aywa kooniska sii daaya gala anis baa jooga anis dadka soomaaliyeed anisow in adeer ka soo bax muudka soomaali maxamed adeeg ku maqlaanay ma fahanti maqlas anisow soo bax muudka warniyo anigu keeskan waan dhegaysanayay dee aroosh waa nin caano la yaqaano waa nin meeshuu joogo iyo wuxuu gudo la yaqaano dee gabadhaas walaashiisa hadday siro dhaafeen oo haddana banaankaas uu yiri waan kala maraynaa cafis bay iga tahay gabadh business lahoo maqaaxiloo gobolto meel degan anigu ma aaminsani sabab ay wadanka uga tagto iyadu waxaan u malaynaya in markii horeba cabsi ka hadday jirto oo South Africaanka ay ka cabsanayso ama dadkan kale Afrikaanka ah ama fikir hore ay u qabto inay meesha iskaga anisow codkaadu waa xun yahay brother codkaadu ma la maqlo malema anisow codka iska sax daw haddaan ku maqlaa yes ha niyow gabadhan hadday hore ugu qorshaysnayd inay wadanka ka tagto oo maxaan ku rahdaye ay cabsi ay jirto amni darro ah oo dhanka dadkan wadanka ay la degan tahay anisow codka saaxiib oo nin haddii wax gaaraan gabadhaasi ehelkeeda iyo qaraabadeedaba meel loo raaco la yaqaano inay horta uga tagto uga haajirto anigu ma qabo lacalla haddayba rabto inay tagtana inaad qof South Africa ka tegay Nairobi aadaya $25,000 baa igu baxaysa maxqul ma noqonayso marka runta laga hadlo yaanay abaayo soo dhawow may maqshaanay ku maqlaabo yaana abaayo horta I know cabsi way jirtaa sida caadiga ah si Soomaaliland aan kula hadlayaa qof ka baxaya wadanka mataqaanaa South Africa ama Johannesburg ama Cape Town ama magaalo kale ama Zambia u socda abaayo hal wiilaa dhashaan filayaa sida caadiga noola hadal si anagu garab iyo Soomaalida ay ku siiso ma fahanti abo horta dhageysta wala aniga wada ka digayaa hal mid baan ayaara leeyahay yaara wiilka arrintaas waxna barnaamijkan wax sax rabnaan ka hadalnaa wiilkaas arrinta ahayd oo gabadhan ka soo xabatay wiilka waa aqaanay waa u keenay waa ka garbixiyay wixii kale oo gabadhaasi financial problem ay jirto family weyn bay ka dhalatay waa loo geenayaa wax u baahan tahay waa soo wada hadlaynaa haddii jiraan wax kale ilaa waxa fiican wixii reality in laga wada hadlaa fiican mogta ma rabno dadkii inaan anagu aan dhahno saas sameeyna marna ma rabno wixii xaq loogu leeyahay dadka ay leeyihiin familkeedan u geenayaa waana ka soo garbixinayaa markaas ka bacdi haddii ay ka soo garbixi waayaan markaa public hala keeno laakiin hadda gabadha familkeeda maysan iyo waxaasaan u baanahay wiilkaa halaga garbixiyay aniga in adeerkeed bana maadaama aniga itiri iga garbixi wiilkaasaa dhibaato ii geysanayo ii dilaya wiilka abti baan u ahay waa u keenay waa ka garbixi mudugo wallahi qof xunaataa wallahi haddii aan ku dhimayo ma xumiyo hadalkayga dhamaysanaya haddii gabadha caawin soo baha hadalka dhamaysanaya si kamiya khaldan hayde gabadha caawinteedi waan kala hadlahay gabadha adeerkeeda caawin hadalka ma hadla dee caliyo lagu ixtiraamto qolka adeerde mudug abti waa ku bari hal mar isii waa soo noqday raali noqo hal mar isii gabadha caawin hadduu baahan tahay familkeedan hay ilmaadeerada baa okay dib malaha mudug hal mar isii ma hal khaldama inta ay arrin qaado mudug hal mar isii mudug hal mar isii fiiri horta caabo idil waxay dhahdaa Soomaalida meelaa rabi roob ma iigu da'ay dhahdaa Soomaalida sideedana xaqa iyo baadilka mar walba u fiirso mar walba xaqa iyo baadilka xaqa una haraayo baadilkuna zuulaayo beenna sideeda waxaa la dhahaa waxay socon kartaa kaliya inta runta ka daba imaanayso ilma adeeryaalo niman boqoloowa ilaahay idinka dhigay dad aqli iyo garasho iyo garaad lahaatihiine alaysa minkum rajulun rashiid miyuusan idinku jirin nin midkiin wax garanaya gabadhan walaashay ah maato idil way hadlaysay
markaan ani hadda degay waxay dhahday ninkaas walaalkay waxba uma qabi dhaqaalaan rabaa waxaan rabaa gabadha walaashay inay laba mid ee is saarin laba mid inay is saarin ee kala qaado hadday dhaqaala doon ee ahayd ee marka horeba bahashan ee la soo riixayso si ay dhaqaala ku hesho Soomaalidaasay la hadlaysaa kamid oo dhaqaalaha anaa bilaabayo aniga hadda idin la hadlayo aan dhaqaalaha bilaabayo haddaysan dhaqaala doon ku ahaynay leheedna caruusha ay dhibaatay caruusha shaas hadday leedahana hadda inta idinla joogta iyadoo aysan degin aysan meel aadin already loo mar isbadbadashay two times وشيلين adigu kaas qaab uma baahan yani ana hadda ku dhahaya inta waxa tahayna waa la yaqaan dad yar yar ina candada u jirtina waa abti hal mar hal ixtiraamo maadaama ani caawa aad dhowr mar igu soo celceliseen oo weliba ay ehbiseen ay dhahdeen caruusha waxyo ka soo noqon nin weyn oo qool ah nin weyn oo aabo oo mas'uul oo Soomaali inta iga taqaan ani ma aqaan qof si kale ii aragsanay intii dadka ii yaqaan nin weyn oo mas'uul hadalkiisa miisaamana ah gabadhan walaashay ah maato idila hadlaysay hora idinku dhahay meel hoo u baahan hadal uma baahno waxa lii xagxaganay ama ii xagxaganaysa cirdigay sharafkay waxaad gudbaysay hadday dhaqaala doon ahayd ha cadeyso haddaad dhaqaala doon aanaa bilaabayo haddaysa dhaqaala doon anisa wuxuu dhahay khayr Allah siiye shakhsi meelaha uga cararnoo dhahay si kala lagu caabiyo mudugow inaan tolnahay waa ii sheeg kulligeen waxa abti ahaan kuma dhihin gabadha labadaas idin kala cadeysay kadibna topic halo la soo hadday dhaqaala doon aanaa bilaabay waa ka baxay yaana mudgal abaay mudgal anaa mud ku geliyay caruushow arrinta way dhamaatay adiguna waa fahantay annaguna waa fahnay ma fiicna inaan wax si fiican u tilmaamno gabadhan dadkeeda iyo familkeeda u geenayaa adiguna isla familka tahay inaad raal lahow sidii laan dheernimada u deg arrintana waa la socotaa caafi masaamax bas tiraadeen hore uga soco anaa ii timaaday anaa ku yeeray aniga u qaado horena uga soco inaad mar rabna isku buuqdaan gabadhuna waxay ku qaldan tahay wiilkina caaydo there is no way wiilku ku aflagaadiisid waxa xaq u leedahay waa sheegan kartaa laakiin ina caaytinti abaayo waliba anuu victim ka qorta aniga لا way أباي دقيسو أباي وديك ارتاد قادون ما هي أمسان بانهاي لكن عايت انت واخرت ما هو عايسة هذا هو يستعيد كواي عايز سنين إسلام وأشاتو سيكين دقيقة وحيا والي هالكلمة يجيب هالكلمة سعد ما يرتبط مدوق ما سنتهي على علم والسلامة يا لما أنت مدرش دكتور أنا سيك لمانتين ليو ده لبوا حلقة رقادو gabadha iyo wiilku way iscafiyeen si gobonimada Carabiyeelka isku dhow isgaaraan way iscafiyeen waxa way isaguna waxa gabadha uu cafiyay iyaduna soo sheegtay waa cafiyay okay halkaas ay ku dhamaatay isdhax ba ka shaqeyseen shaqo wanaagsan ba qabateen shaqo rageed ba qabateen gobonimo halkaas ku ogaanay wixii kale naado qofku waa gabar weey waa baahan karaa waxa u baahan karaa insaan baa leeyahay si kale ha loo xaliyo abba adigana ninka mudug waa familkaaga uu kula hadlay wuxuu ku yiri TikTok xeer buu leeyahay marka hore qofka tolkiisa loo geeyaa tolkii markay soo afgaran waayaan buu Soomaali weyn u yimaada soo dhaxgala oo yiraahdo war Soomaali weyn hay alay kaco marka adiguna abba yaanay ku qaado familka hal soo hadlo ha ku geeyo waxa u baahan tahay baa laga yaabaa wax ka badan bayna ku awoodaan ka bacdi markii familka waxba ka soo wada haday dhacdaba soo laabo Soomaali weyn oo dhan baa ku joogta baa gabar Soomaaliyeed baa tahay oo hooya oo sharfan intaas abba macaan ka deeqda ma garatay way hadalka hadii la jidiido mala yaani buu noqdaa marka dambe meel xun buu ku dambeeyaa abba adigana saas ku fiican sida caadiga familka wax laga yaabaa inta hadda ka raadinayso dhabalkeeda inaa ka hesho walaashay ma fahantin على عداوة نوع برتو على عداوة مدقان وكل هاللي قف حتى يقول قلبي وكهاللي على عداوة إنا فانت مدقان الله كودو ولا ما أنا أفهم ما أنا أفهم ما دولة نفتر كذا ما رأيت برادر كي قبر سوماليات وأنت إذا كلها هذه أساسا أباهنا إنك صدق معناه حوجا العقد إيش كنت أكبر مكتسب عقد إيش كنت وحن طبعا أنا تمنكم دول تمنكم يس لكن مثلا شكر قفكم حتى أسوأ نحيا ما فهمت ونفيك وصفرة برو مجرد أنا أنت كسرت متقنا ترونو هذا متقنا يشيك دبي وأن هذا مش اللي يجلس تحت برج خليفة أنا واحد على عداوة 25 وكوير تاي قبر الصومالي دويل أفرتن كوب بحقول هذا النيو تاسنا دوا عادي أفرتن كوسوال واحد بدن بحساي أنت إنك بدن بحقول هذا لكن واحد روح بدن سي أفرتن يكون أفرتن بالسين كراي يكون بالسين كراي أبا فملك كوجي يزو على عداوة فملك كوجي
giftaradii reerkii wuxuu dhan isaga saaxiib ay yihiin kabacdi waxa laga yaabaa in konton kun baa ilaahay waxa weye mataqaanaa dee budka kugu dhufto haddii waxba garan waayaan oo majarteen kugaa soo garbixi waayaan soo laabada dadka soomaaliyeed oo isku mid ah ilaahay maalin boqol intii soomaaliyeed baa la aanu caawiyay sorry yani ma fahanti sorry abay sorry alcadaawa laakiin wuxuu rabay 5 kun inaa sheegato si aan ugu fahmay oo ka bax maya micnaha maya sida caadiga bro wallahi hal gabar ama laba qof saddex qof u dir lahaa wallahi hadday 10 kun ama 7 kun sheegan lahaa 8 kun laakiin 25000 bro come on hadii sax saas ma aba horta fahanti dhegeyso inta igu filan oo aan u baahanahay baa i weydiiso waana kuu sheegay ma fahante adigu taada ka hadal adigu iska hadal maya maasantaa abay ma fahante tan kale waxay tahay ani gabar soomaaliyeed baa qof sajuub ah qabiil ma aqaanin sheekada majeerteenkaayo meesha infaanka majeerteen ha aniga sheeganin dhalatay majeerteen baa tahay kan baa tahay aniga qabiil ma aqaani ma fahante abayo hadda sheekadeedana mudugaadi soomaaliweyn baa usoo bandhigtay inaan aniga wixii igu soo celisaan la yiraahdo gabadhan waxay ka hadlaysay waxa waaye lacag doon ba ahayd ninkan waxay kusoo eedaysana waa been taas horta waa diidanaya ani wuxuu ilaahay ugu ogyahay ilaahayna markhaati ka yaaba meesha hal keenaya su'aal yaana hal inaa su'aal baa ku dhegeyso weydiinaya horta inaa idin dhaho caawinaad baa u baahanahay meeshan safe kuma dareemayo meel kale u baahanahay inaa u guurana dee xaq baa u leeyahay okay yaana inaad abay arrinta su'aal ku weydiinaya caawinaadda hal nin wax bartay mid annagu hadda abti waa ka wahadlay soo maaha abti bal arrintaas kala hadal kelmadda wuxuu weydiinaya iyada yaana hadda wax ku weydiinayaa tiktoka xeerkiisa ma fahansanta horta tiktoka iyo dadka jooga qaabka u shaqeeyaan ma la socota horta lama socdo walaal meesha wax baa soo okay dhigaa abay tiktoka anaga khalad anaga fa tiktoka wuxuu u shaqeeyaa ilaahay baa ummadda qabaa'ila ka abuuray yaa ayuha nnaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wey shucuub iyo qabaa'ilo ina kaga abuuray litacarafu si layskugu barto waa awood ilaahay wey taasu okay tiktoka xeerkiisa wuxuu yahay qofku waxa uu u baahan yahay meeshaan qabiil iyo reer baa Soomaali u wada joogaan waana la wada jooga kor waa laga wada joogaa laakiin reer baa ka jira ma fahanti qofku marka hore markuu wuxuu u baahan yahay ama talo iyo arrin ku timaado familkiisu u tagaa waxaasa u baahanahay ama cumaad baa loo soo dejiyaa ama game baa loo ciyaaraa ama si kale loo sharfaa tolkii haddii qofku ay kasoo garbixi waayaan ama waxba ay waxa weye ku tari waayaan kabacdi intuu dadka Soomaaliyeed oo dir iyo daarood iyo hawiye digli mirfle jaral weyn intuu u yimaado wuxuu yiraahdaa walaal waxaasaa Soomaali weyn uga baahanahay markaasaa la wada garab galaa labadii adigu midna ma aadan samayn hadda mudug wuxuu kugula taliya waa in adeerka weeye waa Nuxbar Maxamuuda anaa ku kaxaynaya tolka ku dhex geenaya kabacdi haddaan isu afgaran weyno oo sida arabtay ay noqon weydo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa way dhex imow marka inta rabtay in ka badan baa lagu awoodaa ma fahantaa baa waa systemka uu TikTok u shaqeeyo walaashay adaa lagu eedeynaya gabadha maxaa lagu keeni weyday hadda haddii hadda caawa aan kaa ballaariyo de aniga nin weyn baan ahay eed baa iga soo gaaraysa boqolaal gabdhood baa la caawiyey giftarna waan ahay anaa kuu geynaya wixii markaas ayagu ay kaa yidhahdaan hadday ku qaabilin hadday isku qaabilin laakiin first waxaa ka horeysa annaga horey umaana warhayn aniguna ma rabno inaadan sheekadu way dhan tahay adiga nin wax bartay inantan qabiil waa run walaal ma taqaanid waa run sujuubaa tahay waa run laakiin meeshan tiktok marka la joogo waxaa laysku caawiyaa waxa marka hore waa in inanta reerkeeda iyo jifadeedii marka hore ay waxay u baahan tahay ay dabooli karaan haddii ay dabooli kari waayaan markaas baa soomaalinimo loo gudbayaa marka mudug gang israaca iyo nin wax bartay arrintaas ase family ahaan waxa u baahan tahay iyo kharashka iyo waxaasoo dhan isla afgarta haddii ay reerku kuu dhammeeyaanna waa ahlan wa sahlan hadday kuu dhammayn waayaan ama isfahmi weydaanna gabar caana baa tahay intaasoo follow haysata qolkaaga soo ballaqo qolkaaga soo furo soomaaliya garab baan u baahanahay caawiya dhawaaba intaasba sheekadu maxaa maanta dhan isku daalanaya diyaar waa walaal aliyow adigana inaad waxaan ku leeyahay anu ma rabo moogtahay mas-uuliyad khaldan inaad sameeyo mas-uuliyaddeed waxayd